xariifkan oo lagu magacaabo David oo isticmaalaya gacantiisa si uu u dhalo carruur ibn isbaamkiisa mashaawadiisa wuxuu ku shubaya caagan si loogu bacrimiyo haweeney kale David hawshan oo kale wuxuu sameeyaa 563 jeer isagoo iibsanaya isbaamkiisa si loogu bacrimiyo haweeney kale mar walba David dalkan ayuu u imaadaa si uu iibiyo isbaamkiisa 25 sano kadib David wuxuu sheegay dhamaan carruurtan inuu isaga dhalay hooyooyinkoodan wuxuu soo dacweynaya maxkamadda David ayaa sheegay 563 carruur inuu isaga dhalay wiliba uu ku dhalay isbaamkiisa sidoo kale David mar walba uu doodaya saaxiibkiisa isagana uu yaabay halkan ayuu iska jeefaa wuxuu u baahan yahay carruurtiisa hadii saaxiibkii caaya noqonay waxa lagu soo wariyay joornaalada ibn soo baxaan waxa imaanay cafeteriga si ay ugu sheekaystaan David ayaa markii dambe firfiirnay waraaqadahan si uu ogaado ilmihiisa sidoo kale David wili ma uusan guursan oo soo baxay wuxuu imaanay halkan si uu waqti la qaato saaxiibkii David saaxiibkiina telefoon uu ka hadlaya kadibna isagu uu soo meesha uu fadhiisanaya ugu dambe saaxiibka wuxuu arkay David uu imaanaya wuxuu weydiinaya waxa ku dhacay isaga markaas ayuu David wuxuu ku dhahay aniga waxa rabaa inaan soo ceshto carruurteyda kuna soo ceshto xaafadeeda dhamaan ninkiina wala yaabay wuxuu leeyahay adiga maxaa ka qaldan balse David uma jawaabayo uu qoosla kaliya uu ka aamusay wuxuu imaanaya ninkan xariifkan naata waxna David wuxuu ku leeyahay markor maxaa guursan weeyday isagana uma jawaabayo uu ka aamusay ilaa ugu dambe David iyo jacaybkiina ay ka heshiiyaan marka dambe David waxa loo keenay mid kamid ah ilmihiisa waraaqadooda oo firfiirinaya dibna David wuxuu ogaanay carruurtiisa mid kamid ah inuu aad u jecel yahay kubadda cagta oo taageero uu imaanay markaani David iyo midkan aad ay isku eegayaan si saaxiibkiin wiilkiisa ay taageerayaan dadweynaha idil David wuxuu sheegay wiilkan inuu isaga dhalo oo yahay wiilkiisa kadib ayuu David wuxuu go'aansanay inuu dib u laabto ciyaaraha wilibaysan ciyaaran isaga iyo wiilkiisa dibna kubadda ay soo ciyaaraan weyn soo baxayaan David iyo saaxiibkii waxaan imaanay xaafadiisa markaas ayuu David sawirada carruurtiisa oo idil wuxuu ku dhigsanayaa derbiyada